السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أقيارتي تبان سلامي عشر كان عاوكو سابسيها سيدا وشغلنا أدوب دريم ويفا ان سي اس 5.5 marka waa kana folderkii sidaan ugu shubile marka aan furno marka sidaan ayuu noogu soo baxayaa marka softwareka aan furno marka waa kana setupkiisii ayaan double click siinaynaa marka waa kana ku shubidda ayaan bilaab rabnaa laakiin hadda weli ma ku shubin laakiin waa diyaarinaynaa marka sidaan ayuu kugu soo baxayaa marka waxa laga baahan inaad dhahdid accept inaad ku dhifatid laga baahan yahay kadibna numberkan ku weydiina marka waxaan qaadanaynaa free days ayaan qaadanaynaa install ayaan leenahay intan waxaan ka dooranaynaa luqadda international ayaan ka dooranaynaa English international kadibna next ayaan dhahnaa marka next dhaano marka waxaan leenahay install ayaan bilaabaynaa marka ujeedaa welcome to waa kasoo dadegnay qaybtan ayaan serial numberkii adoobkii option kulli waa ka nimaanay install ayaan maraynaa kadib finish ayaa dhiman marka installka wuxuu wadayaa ugu yaraan waqti badan ayuu qaadanayaa marka hadda ujeedaa wuxuu bilaabayaa ku shubidii total time kana ma soo qorin laakiin meeshan complete ka waxa laga rabaa inuu noqdo markii laga rabo boqolkiiba boqol ayaa laga rabaa laakiin markay noqoto 99 ayaan isku soo laabanayna insha Allah biidni Ilaahi marka hadda u soo dhawaanay waxaan maraynaa 98 wax yar ayaa ka dhiman waan gabagabay doonaa insha Allah biidni Ilaahi Kariim okay less than minute-kiina waa dhameeyay okay marka hadda waan ku shubnay waxaan laga rabaa done inaad dhahno marka waxa laga baahan yahay inaad back dhaadid aad dib ugu laabatid folderkii hadda softwarekan ku shubina marka waxa la baa DLL kaas failka waa inaad furtid marka meeshaan ku saartay 32 bit kan ayaa double click siinaysaa waa furinaysaa badanaa computerada mostly 32 bit ayay u badan yihiin marka waxa leedahay right click ayaa leedahay macnaha waa soo copy-naynaa kadibna waxaan leenahay copy kadibna iska xir marka haddii aan dhahno waxaan aadaynaa my computer dal aan wanagu dhib badan tahay softwarekii ayaan raadinaynaa meeshaan kaga shubnay marka waa kana softwareka intuu kaga jiray right click lee dushiisa ku dheh kadibna waxaa la properties dheh sidaan ayaa kaaga fudud inta dhileed my computer drive c program failkii bala xaga slimta alle sidaan ayaa kaaga fudud kadib waxa leedahay meeshaan find track ayaa leedahay hadduu windows 7 ama vista yahayna find location ayaa ku yaalo ku dhufso meeshaas isla toos waxa kugu soo baxay waa kana fiiri c program adobe dreamweaver isla marka inta ma right click ku dheh basti ku dheh kadib meeshan windows 7 ama vista markasta waa sheegnaa meesha waxaan kugu soo qorayn karo copy replace ayuu ku leeyahay laakiin windows xp ga yes loo ka rabaa bis wax kale kaagama baahno kadibna iska xir kan okay iska dheh marka softwareka aan furno open dhahno marka sidaan ayuu kugu soo baxayaa waxa laga baahan inaad dhahdid select all waa inaad dhahdid kadibna okay waa inaad ku dhufsatid marka dreamweaver sidaan ayuu kugu soo bax marka waan u jeedaa inuu yahay 2011kii macnaha versionkii ugu dambeeyay dabcan ma marka dambeeya version ayaa soo baxaya waa inaad la socotaa marka sidaan ayuu kugu soo baxayaa haddii aad creating website sameynaysid
html waxyaabaha dham lagu sameynaa dham sidan ayaa ugu samaysan kartaa marka insha allah biidnillahi kariim waa idin fududahay kheyr ayaan idin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh